tababarkan oo ku saabsanaa ka hortagga tahriibka badbaadinta dadka socodada ee isaga gudba xuduudaha iyo maamulka xuduudaha ayaa waxaa goobtaasi ka hadlay madaxa hoggaanka tababarada ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Colonel Cabdiweli Cabdilaahi Warfa kaas oo ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay inay shaqadooda ku dabaqaan cilmiga ay barteen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaantiin waa salaamantihiin. halka kan tababar baa maanta inoogu xidhmaya. tababarkaasi wuxuu yahay idinna waa ogtihiin waan la idin sheegay. waxaan doonayaa marka hore inaan aad ugu mahadnaqo hay'adda IOM oo gacan weyn ka geysatay gacan ay naga siisay tababarka kan badbaadinta dadka jilicsan maamulka xuduudaha iyo dambiyada laga gala dadka dhammaanba seminaarkan maanta inoo fulisay idinkuna si wanaagsan aad u qaadateen. geesteedana waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Jason Grover oo ah mas'uulka hay'adda IOM u qaabilsan Soomaaliland taas oo ka sheegaysay faa'iidada tababarkan uu leeyahay ciidamada badda Soomaaliland iyo sida ay muhiimka u tahay badbaadinta dadka jilicsan iyo waliba dadka socotada ah. You are all on the front lines to be helping vulnerable migrants, and it's very important for you to have the tools and understanding. waxaad tihiin dadka hor taagan maalin walba la kulmaya hor jooga dadka dhibanayaasha ah haday carruur yihiin haday dad jilicsan yihiin haday dad soo qaxay yihiin waxaan doonaynaa dadkaas idinkoo ku ixtiraamay human rights-ka in dadka la soo khalday ama dadka laga soo qaatay lacago ee la cross garanayo aad si fiican oo hufan ula shaqeysaan. gabagabadii waxaa si rasmi ah u soo xidhay tababarka muddada 4 cisho u socday saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ciidamada badda Soomaaliland. taliyaha ciidamadaasi Cabdi Xirsi Ducaale waxaanu sidoo kale taliyuhu beeniyay wararka sheegaya in ciidamadu ka qayb qaataan tahriibka lana dardaarmay dadka isku diyaarinaya tahriibka. waxaan hadda la bartay programka 4 maalmood socday la bartay oo ah border management-ka iyo sida dadka loogu qaabilo xuduudda haddii dad badan oo soo qaxay yihiin iyo haddii kuwa tahriibaya yihiin iyo haddii ay yihiin dad dhibaataysan oo xadka soo maray oo gudahaba ka soo qaxday IDP intuba waxay u baahan yihiin caawimo iyo maamul bay u baahan yihiin. waxaan halkan lagu baranayay maantana waxa weeye sidii loo maamuli lahaa dadka soo qaxay ama soo dhibaatooday ee xuduudda iyo xuduudda yimi. waxaan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iideysto arrin yar oo kale. qaar baa dadka yidhaahda tahriibta waxaa ka qayb gala ciidanka sida xalay iyo laga sheegayay habeen horeba telefishinada qaarkood laga sheegayay. ciidanku wuxuu og yahay dhibta baddu ay leedahay ayuu yaqaanaa. qof aan bad garanayn kuma sii daayaan xataa kalluumaysatada 3 qof iyo 4 qof ee doonta fuushan ayaanu ilaalinaa oo magacooda qoraa oo ogaana xaaladooda waxay ku siman yihiin. macadalla inaanu ku sii dayno 100 qof ama 20 qof oo waashar oo 7 mitir fuulaya inaanu bad ku sii dayno haddaanu aqoonti leenahay kuma sii day karo damiirkayguna nasiin. geesta kalena waxa uu taliyuhu fariin u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaano ka mid ah gobolka Buuhoodle. shaqaaqa yar oo ka dhacday meesha la yiraahdo Horfadhi iyo Go'aandhaale waxaan leeyahay dadkii ku dhintay baan horta ka tacsiyadeynaya dadkoodii dhibaatada halka ka dhacday maalinta socotay dadku ku dhintay. waxaan leeyahay dadow waa taqaanay dhibaato iyo qax iyo colaad hore idin soo martay wax badan bay idin soo martay waad ka dhageysantihiin wixii idin soo maray dhib waad ogteen colaad idin geysatay ha ku celinina ha ku noqonina dadkii oo dhami ka baxay. Cabdiraxmaan Axmed Ibraahim Cabdiraxmaan Batash telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.